السلام عليكم دمان أخيار سومالي ميل كستو جوكتين كسو رواد جنرال كداواني سوان نوردين اوفيشال بليس هدانو سبتا سبسكرايب عاونو وحاني وذا ويري ير او كسو دعا دبقى فراد ويل كاس مسكين كا او كسو دعا دبقى فراد آبي لحنون سنيا لبات اسكايتتو او آد ياديو وحنون سلا فيه ودنا بروبا قلنا لدعا وذا بروبا aabe Soomaaliyeed iyo wiil yar oo dhalay oo ka soo dhacay dabaqa afraad buu ka soo dhacay qaarka dambe buu waxmay ama jajabay gidigii meesha joogtaan soo dhawaad saaxiibaya يا أبتي حاتري وليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وداود يلقدي ميكستا جوجتان نبتقليدي بين حريسيس متقارك يا تقولين توجودكنا هذا نسول هذا كل نسول هذا مقال كوبان والشعور نحدينات ستة أما وطا وعن فدينا جوري هرتي من الجوري هرتي وعن فدينا وحنا تشوجا أب سوماليد يقولي رو دلائي وكسر عيد بقى أفراد وكسر عيد قارك دم أبو أحمد يا متشبي قدي ميكستا جوجتان سول صاحبيا سول وشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مع إسماعيل ويل كان هذا ويل كي جواي وأبو بكر إسماعيل قدر باقي بسدي دبق أفراد وكدعي أرنجان أرنو قرنوها إن مدعانا وانكور رفضنا وأنا هذا وحشقة حمل معايا ومدرسة ويجي حرنتهاي معلم دكسي والله معلم دكسي أنا مدرسة ويجي حرنتهاي وإن مدة باقي مهندس كأهل والحق وحواي الحق ما جرت شقة ما جرت قريه عند تجا القرآن أمي وقرنا يتانا وحواي رحمن توزع زيادة السقيرات بدل ملهن ويلك حوك شوية ويلك هذا جلبها للوجيه وكجابي جلب كأقدرنا هذا إن إسبتال في عن الجيب على ده حتى كجاب وانجيني مركا كبكي سيف على ما كمان إسكان كمركا صارنا لفت سيدة وقلا عنتها برجليان إن برجليان مثلا هين قاردة هايان أنا أقون أمليه لكن وحوا إله بانكو دافني هذا ضمن حقوق هندي على جي أود أنكو جينا ملء إسبتال حتى إسكان ما أودنا وحنكو صارنا مركا الحمد لله رب العالمين عنقنا واسد حجر تقصون ما كعبتنا سان waxaan ka codsanayaa in aad noo garab qabtaan oo cunuga kaliya noo daaweeyaan inta kaliya insha Allah ta'ala waxa way caafimaadka wax ka muhiimsan ma lahan wixii kale Ilaah baa u qabnaa oo ma taqaddimo lanfusikum min khayrin tajidu inda Allah dugsiga quraanka ka dhigtay gurigan dushiisa waaya wadadan dariiqan gurigeena guriga oo ka dambeeya hadda dhawaan waxa lagu dhahay kiradii wixii koroonihii 4 bilood lagu yeeshtay ninkii qof wala ku dhijiyay wuxuu dhahay bal waaka meesh guriga waan qaatay yani anagana waa iska dool qaadan waxa way waa aragna imtixaan inoo jiro waa qadar iska qoran laakiin alxamdulillah rabbil alamin waana noolnahay ilaah un baan baryaynaa insha Allah dadka muslimiinta walaalaheena waxaan ka codsanaynaa inay garab qabtaan ilmaha yarka inay kaalmeeyaan insha Allah ta'ala awlaad saqiir ah waay ilaah ajr xasanaha ka siiyo adduunyo aakhir insha Allah inay liibaanaan ilaah baan u baryaa mar walba inta insha Allah ta'ala telefoon ma leedahay waan leeyahay beesam ku leeyahay فإليه تلفونك dadka u sheeg daawanaya Soomaaliyeed waa 0726 050505 eber 726 eber 5 eber 5 eber 5 si degan u leh eber 726 eber 5 eber 5 eber 5 ama 0726 050505 magacaaga oo saddexan iyo ka imbeesada kugu sameeyay isleeyin waa Jeelani Ismaaciil Maxamed oo hadda baalka igu saf garaysan soo baxaya Jeelani Ismaaciil Maxamed dawada gidigii Mexico joogtaan muuqaalkina horta aad buu naxdin badan yahay ummadda Soomaaliyeed daawanaysa dunida Mexico ka joogtaan ninkan aabaha ay wadaadka halka fadhiya isagoo ku dhiiso waa cheese qadarta loo qoran tahay ninkan waa madrasa u furneed dugsiyo Kenya ku hayay dugsigana waxaa looga xiray corona dartiisa iyo cudurkan Ilaahay naga dulqaaday looga xiray wax alla ilaa amal oo haay male uu yiri oo hadda cunugay ku caawi kara alaashan ku daaweey kara lug buu ka yeetinayaa ama wallan gare wuxuu baahan yahay gurmad xoog leh inaad u fidisaan Ilaahay baa gurmado oo moogta gacantiisa weyn tahay ummadda Soomaaliyeed milgaha iyo maamuuska galmudug Mexico joogtaan ilmahan yar ee sabiga ah halkan yaala haddaan sii naashnaasho intuu yiri qaarka dambe horta bugaaxmay oo jajabay oo midhaha noqday
ama digaandigaha noqday dabaqa afraad buu ka soo dhacay imsa ku sheegtay daadis waa 3 jir waa ilmo 3 jir oo ka soo dhacay dabaqa afraad qaarka dambe oo dhan baa waxay yihiin saad muuqaal ku daawanaysaan waxa ku duuban de maraqad baa ku duuban dhakhtar weyn oo moogta caalamiyan wuxuu ku geeyi waayay anagu nagu soo eertay oo moogta dad noo soo sheegeen dad culimada baa aniga ii soo sheegay oo aniga Cabdixakiin baa wada socon muuqaalka duubaya oo na soo tilmaamay oo nagu yiri ninka wadaadka halka jooga oo markii dugsi quraan dhigi jiray oo mucjis ku habsatay inaad muuqaal ka duubtaan ummadda Soomaaliyeed wax la baxda adu bandhigtaan buu baahan yahay saasaan ugu nimid oo ugu soo kalahnay waxa ka sii daran gurigii uu deganaa waxa ku nool guriga isaga iyo ilmahan iyo dhowr ilmood oo kale iyo xaaskii ilmaha dhashay ama hooyadood guriga koronto ma laha Nairobi dadka jooga way garanayaan guriga marka kirada la isku yeesho korontada la goosto anu sharaga cid banaysa garan maaye korontada la goosto ama biyaha moogta xogaa cidhiir laga dhigaa mid dawladeed iyo mid diina mid yahay ma garanayo dadkan joogin Nairobi hadaan u sheego qofka marka guriga lagu yeesho korontada laga gooyaa ilaa intii joogta way garanaysaa korontadii baa laga jarayo meeshii mugdi darteed intay ka qabto muuqaalkii waan ku duubi kara weynayo ilmihii intaan soo walaandeynay baan dibadda ula soo baxnay saan muuqaal uga duubno ku soo bandhigno imse walba lagu leeyahay kirada guriga waa 6 bilood ay sheegteen hadda ya 6 bilood oo kira ah iyo korontadii oo 12800 ah waa isku imse marka gudahan hadda bishi waxaan ku qolay barso waxaan ku deganaa 16000 hadda 6 bilood waa ilaa iyo sida sheegayaan waa 94 oo maleenaya 6 bil 94 markii lagu daro 12000 waxa 100 wax la jiro waaye iyo 107 meelaha ma aqaan marka $1000 iyo xogaa suu sheegayo wadaadku aad ma xasuusto ya xorna ma ihi waxay dheen ma guuri kartid mana dhuuman kartid ma bixi kartid yani waxay mararka qaar waxay moodaan inaan guriga ka dhuumanayno waxa waaye waa markay imaadaan waa in fadeexaystaan waa qayliyaan oo kirada bixi ya abti حاتري وليه حنو بدرما غريغا ilma yar waxaan xanuunsanayaa meeshan waa meel qabow san muuqaalka idin tusna darteed baan halkan u soo dhignay aad bay u qabowdahay waa ka qaadaynaa baahidan halka soo dhignay waa muuqaalku aan la arkayn oo gurigu mugdi yahay ama uu madow yahay kaamarada ay ka maqan tahay waxaan leeyahay ka maqan tahay korontada ay ka maqan tahay sababtan halkan u soo dhignay qabow ilma yar dareemaya sababtan halkan u soo dhignay waxa weeye inaad aragtaan de gurigu waa mugdi koronto ma laha korontadii baa la goostay kira lagu yeeshay ku daahdaahday oo moogta isgaargaadhay oo dhowr bilood ah kun iyo xogaa weeye waa $1000 iyo xogaa suu sheegayo waa waxa ugu yar laakiin ilmahan wuxuu u baahan yahay goob caafimaad reerku nolol saas iyagu qudhoodu ma haystaan in gurmad xoog leh loo fidiyo bay u baahan yihiin meel kasta joogtaan ummadda Soomaaliyeed milgaha iyo maamuuska naga mudan ilmaha yar iyo reerka iska tabaalaysan mid bukaan iyo mid baahayd intuba hayso u gurmada labada telefoon shaashada ku qoran midna ana asita midna wadaadkaasi labada telefoon shaashada ku qoran kii aad doontaan baad soo wici kartaan meel kasta joogtaan ilaahay idin barakeeyo dhamaantiin ummadda Soomaaliyeed milgaha iyo maamuuska iyo qadarinta iyo sharafta iyo ciisiga naga mudan dad fara badan oo tabaalaysan baa jira kuwa xanuunsanaya kuwa baahi ku habsatay kuwa arrimo kale iska haystaan wixii dhibaaba haystaan rabbi baa ka qorqaadi kara ilaahay ka qorqaado cidii wax la baxda ilaahay ha u laban laabo miisaanka xasanaadka ilaahay ha u saaro waxa hubantii muuqaaladan idin soo gudbino midba mid inuu ka naxdin badan yahay waa muuqaalkan in kale ugu naxdin badnaa ilmo yar oo dabaqa afraad ka soo dhacay oo bugaaxmay oo saa isaga yaala oo mariyo ku duwan yihiin oo isbitaal weyn wax lagu geeyay la yahay gurigii uu deganaana qayla iyo uu buu ka taagan yahay ku aadan karada la bixiyo ama ijaarka guriga ninka wadaadka ee halka fadhiya usuga naftigiisu waa jiis waa calaashan waa curiyaan sidoo sheegayo calaashan lagu baa wax ka dhibaato ugu dhaceen sugoo tiisa la tabar la oo la tiicayo la dhibaataysanaan cunugiisa yaray oo 3 jir ahay ka soo dhacay dabaqa afraad marka bal Soomaaliyeed caawiya dhiya dugsi quraan buu dhigi jiray suu sheegay yaad afkiisa ka maqlayseen ama ku daawanayseen wuxuu u baahan yahay gurmad xoog leh mid nololeed iyo mid caafimaad bad ilaahay baa labadaba bixiye waxaynu awoodno inaanu garab ku siino ilmaha yar ee sabiga halka yaala uusan lacag u hayn qof hadduu kugu xanuunsado aad qarash u weydo walwal labaad baa qofka ku abuurma gacanta ku haya hooyadii halkaas ay joogtaayo muuqaal ma gali kara bay taan ooyaya ma hadli karo way ka cudur daaratay
inay hadasho way ka cudur daartay waxay tiri ma hadli karo dadka lama hadli karo ma hortay karo waan iska ooyaya marka bidhaantiisa madaxiisa fadhiisto waxaan ka codsanaynaa meel kasta joogtaan inaad u gurmataan ilaahay idin barakeeyo miisaanka xasanaadka idin saaro qof kasta waxa la baxdid ilaahay ku lama laabo cidaad ula baxdana rabbiga qaniga ghafuur rahiimka kuguma qadiyo labada telefoon ee shashada ku qoran muuqaalka midna wadaadka iska leh midna anaasita kii aad doontaan bad wax ku soo diri kartaan waa isku mid waxaan idin leenahay jawaab weyn oo waafiya saad samayn jirteen reerka muslimka ah ee tabaalaysan ha loo fidiyo aad baad maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh muuqaalku xaduubaya ilbuur nabadgelyo